xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa saaka lagu qabtay fagaaraha dugsiga sare ee Sacaadadiin Secondary School magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel. xafladan oo ahayd mid loogu talagalay furitaanka dugsi cusub oo boarding ah isla markaana loogu magac daray Sacaadadiin Secondary School ayaa waxaa saaka ka soo qayb galay wafdi heer sare oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda dhaqanka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Siciid Faahiye oo ay weheliyaan qaar kamid ah xildhibaanada golaha guurtida agaasimayaal iyo xubno kale. waxa kale oo xafladani goobjoog ka ahaa furitaankeedii mas'uuliyiinta dawladda ee gobolka sida barasaab ku-xigeenka gobolka Salel, maayirka degmada, taliyaasha ciidamada difaaca qaranka, ilaalada xeebaha iyo booliska gobolka, ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada. waxa kale oo ka soo qayb galay maamulayaasha sharikadaha Somtel iyo Telesom iyo marti sharaf kale badan. waxaana halkaasi ka furay duqa degmada Saylac Mudane Maxamed Cumar Xaddi Cawad. waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salel Mudane Cali Allaale Rayaale. waxaanu Cali Allaale Rayaale sheegay inuu dugsigani ahmiyad weyn u leeyahay gobolka Salel iyo Somaliland iyo guud ahaanba oo jecel waxbarashada. waxa isna halkaasi ballanqaad waxbarasho kaga dhawaaqay gudoomiyaha sharikadaha Somtel iyo Daafshiil ee gobolkani Mudane Maxamed Cabdi Caateye. wuxuuna sheegay inay shirkadahan ka bixini doonaan fiiga jaamacadda labada arday ee iyagu ku guuleysta kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad. sidoo kale waxaa isna halkaasi hadal mahadnaqa ka soo jeediyey gudoomiyaha ururka jaaliyadda Ramad ee ku dhaqan dalka dibadiisa Mudane Axmed Xuseen Migani, isagoo oo wasiirka iyo wafdigani uga mahad celiyay inay kala soo qayb galaan maanta xafladani qiimaha leh. gunti iyo gabagabadii waxaa xafladaasi soo afjaray wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dhalinyarada ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Siciid Faahiye, iyadoo halkaasi lagu gudoonsiiyay abaalmarino kumbiyuutar ah oo loogu talagalay isaga iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan. waxaana si wada jira uga gudoomay labadan kumbiyuutar jaaliyadda Ramad ee ku dhaqan dalka dibadiisa wasiir Cabdi Siciid Faahiye, wuxuuna isla markaas ugu magac daray Sacaadadiin Secondary School, halkaasoo wafdigani qada sharaf kula qaatay isaga oo xadhiga ka jiray dugsigani cusub ee boardingka ah. dugsigani ayaa noqonaya dugsigii ugu horeeyay ee nuuciisan oo kala ee laga furo guud ahaanba gobolka Salel.